magaciisu waa Muxamed oo ah in Cabdullaahi awowgiina waa Cabdulmudalib waxa dhashay Aamina bintu Wahab waxa uu ku abtirsadaa qabiilada Quraysh yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol adag oo rajo iyo agoonnimo iswan ah waxa la soo kifaacay adeerkii Abu Daalib waxa uu jeclaa kali socodka iyo la shawritaanka naftiisa si uu uga fakaro arrimaha kownka iyo abuurta Eebbe waxa uu aalaaba ku khalaaweyn jiray god ku yaalay buurta Nuur oo lagu magacaabo goofka Xiraa taas oo magaalada Maka ka xigtay dhinaca waqooyi bari una jirtay masaafo dhan 4.8 kiiloomitir ilaa iyo uu bartaas ku soo haleelay dhawaaqa mid la moodo in uu dhiilo sido kaas oo ugu baaqay in uu xambaarsan yahay fariin mug leh oo ka socota dhinaca Eebbe waxa lagu tilmaamaa Saadiqul Amiin cadawgiisu waxa ay ku tiriyaan in uu yahay halyeygii ugu mudnaa ee soo maray taariikhda mabaadi'da uu xambaarsan yahay waa mid bashariyadda ka samata bixisay baaska iyo balaayada una horseeday qaraaraha adduun iyo badbaadada aakhiro mudana daawada maxaad ka taqaan astaamaha boqoran iyo tilmaamaha toolmoon ee uu ku astaysnaa fariin wadaheeni Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee muuqaalkan waxa aynu ku baran doonaa xogo ku saabsan suubanaheeni Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee daawasho waa dadku waxa ay halhays ka dhigteen ku tilmaamidda in uu yahay runsheeg badane ammaane hays leh dhammaantood waxa ay la mubsuudsanaayeen dhaqankiisa bilan iyo sida uu ugu yahay oday dhaqameed garaadkiisu ka fac weyn yahay da'diisa kaas oo noqday garsoore iyo dhexdhexaadiyo wanaagsan oo aan wax eex ah aqoon mushrikiintu waa ay jeclaayeen ka hor intii aanu noqon fariin wade Rabbi soo igmaday hase ahaatee markii uu ku soo degay ergey ka socda xagga Rabbi kaas oo sida dhambaal culus mushrikiintu waxa ay isku dayeen in ay khaarijiyaan kaliya in uu xambaaray fariin culus oo waxyi sameed ah ayaa ay ku colaadiyeen Nabi Maxamed iyo facii saxaabada ahaaba waxaanay saareen go'doon socday muddo 3 sannadood ah saxaabadiisu waxa ay soo mareen tacaddi iyo ugaarsi khaarijin ah waxaanay arrintaas ku kasbadeen kaliya in ay ku dhawaaqeen rumaynta Rabbi ka sareeya sanamyadooda ciddii ugu horreysay ee rumaysay Nabi Maxamed waxa ay ahayd haweeney Khadiija ciddii ugu horreysay ee Alle dartii u nafweydayna waxa ay ahayd haweeney Sumaya rasuulkuna waxa uu khudbad sanadeedkiisii ugu dambeysay dardaaran adag ku soo jeediyey in ay muslimiintu haweenka u samafalaan weerihii ka soo maxdumayay afkiisa waxa ay dhaxal reeb u noqdeen aadamaha waxa ay yiri diilo iyo rajo farax leh ku abuureen balaayiin dad ah oo ku nool daafaha adduunka marka ay xasuustaan xadiiska laga soo tabiyey rasuulka ee ah haddii ay saacadda qiyaamo dhacdo iyada oo midkiin uu abqaalayo geed yaanu u joojin ee ha abqaalo geedkiisa waa tixgelin waxqabadka in ay muslimiintu ku dadaalaan natiijadana Rabbi u daayaan weerihiisu waxa ay sabab u noqdaan in ay isu soo hiloobaan balaayiin bashar ah oo kala jinsiyada ah kala joogana daafaha adduunka kuwaas oo ka dab qaatay weedhiisa midkiin rumayn dhab ah muu rumayn jeer uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa u doorbidaayo waxa uu inoo asteeyey in aanay awood badnidu ku jirin lagdinku laacdanka ee ay xikmaddu tahay in uu qofku naftiisa hanan karo xilliyada uu cadhaysan yahay Nabi Maxamed waxa uu ahaa ku dayasho mudan the role model iyo tusaale toolmoon oo ay raadceeyaan muslimiintu waxa uu ahaa tusaalaha ugu fiican ee aabbanimo ganacsadanimo iyo hogaamiye ummadeed intaba waxa uu ahaa haga dawladeed iyo dulmidiide aan ka cabsan jirin awoodaha aadamaha inkasta oo ay leegyihiin sidee ayaa uu Nabi Maxamed u rabeeyey facii rumeeyey ee saxaabada sidee ayaa ay facaasi ugu beddeleen fariintii miisaanka cuslayd ee ay rumeeyeen mahadho taariikheed waa xogaha aynu ku qaadaa dhigi doonno muuqaalka kan inoo xigi doona
haddii uu Allaha weyne oggolaado subxaanahu wa tacaala.